السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا في عندنا برجينية عشر كان وحوية وعشر كيني سديدات channel كان هذا الإنجليش سيدان هراء ويدين كل شيء عشر رفع ربضان وإنجليش تكاعونا يهنا كسور دجينية وحلقة يا مالك استهدانا كسور دجين إنا لبدي معلومات به مركسور دجي. Let's keep going, okay? Hello everyone. Salam everyone. Welcome back to Hadal English. Kusodawo Hadal English. Imagine you walk into a classroom in the United States or the United Kingdom. You need to know the names of the things around you. Sawiro inaad soo gashay classroom ku yaala dalka Mareykanka ama dalka Ingiriiska. You need to know the names of the things around you. waxaad u baahan tahay you need waa u baahi waad u baahan tahay you need to know waa ogaansho the names magacyada of the things shayada around you kugu wareegsan shayada classka yaala. Today you'll learn the English names for the most common classroom objects. Today maanta you'll learn waxaad baran doontaa the English names magacyada Ingiriisida for the most common classroom objects. Magacyada Ingiriista ee walxaha kalaasyada ama fasalada and how to use them in everyday conversation iyo sida maalin kasta wada sheekaysiga iyo wada hadalka loogu isticmaalo. Let us get started. Let us get started. Okay. Hello everyone. Ingiriisi markaa imika ku akhriya introduction. Waxani waa bilow. Hello everyone. Welcome back to Hadal English. Imagine you walk into a classroom in the United States or the United Kingdom. You need to know the names of the things around you. Today, you'll learn the English names for the most common classroom objects and how to use them in everyday conversations. Let's get started. Okay, waxaad isku daydaa inaad akhrido inaad si saxareed ugu dhawaaqayso inaad ereyada fahantay. Okay, part 1 vocabulary. Vocabulary waa erayo. Classroom objects walxaha classka. English tiiba xaggan ku qoran xaggana Soomaaliga ku qoran. Classroom fasal. Book book. Notebook book qoraal ama book wax lagu qoro. Pen qalin. Pencil qalin qori ama pencil dadka qaar bas way u yaqaanaan. Eraser tirtire. Ruler mastarad. Desk miis. Chair kursi. Backpack boorsa ama shandad. Backpack shandada iskuulka loo qaato weeyaan had iyo jeer amaba dadku markay socdaalayaan ay garabka sudhaan ama dhabarka sudhaan. Whiteboard samuurad cad. Whiteboard samuurad cad waa samuurada cad qalinka lagu qoro. Marker waa qalinka khadka leh lagu qoro samuurada. Marker. Teacher ina dhamaantiin teachers ka garanaysaan baan rajaynaya waa macallin. Student waa arday. Okay, listen carefully. Listen waa dhegeyso. Carefully na waa si taxadar leh dhegeyso. Si taxadar leh markaan ha listen carefully si taxadar leh dhegeyso ayaan ku leeyahay. Repeat after me. Hadaan hada repeat adoo qofka repeat after me taa macnaheedu waxa weeyaan igaga daba celi. Repeat waa ku celin. Me waa qofka kula hadlaya ama aniga. Me waa adiga ama aniga. After waa kadib. Repeat after me igaga daba celi. Part 2 pronunciation practice. Repeat each word 3 times. I'm going to say these words waan ku celcelinayaa
igaga daba celi so that you know how to pronounce them. Book is like book. Notebook, notebook. Pen, pencil. Eraser, ruler, chair, desk. Backpack. sawiradiina waa adiga halka qoraa sawiro yaryar baa la socda. Practice slowly then a little faster. Okay, si gaaban ugu celceli, si slow ugu celceli ama qunyar markaad baratana si caadiya iska ma garanaysaa si caadiya waxba si waxba slow down garay si caadiya ugu dhawaa. Book, notebook, pen, pencil, eraser, ruler, chair, desk, backpack. waa laba eri la isu geeyay waa back iyo pack. Backpack. Practice slowly and then a little faster. Okay. Part 3, useful sentences. These are sentences you can use every day. These are sentences you can use every day. Kuwani waa sentence ama jumlado ama hawraaro aad maalin kasta isticmaali karto. This is a book. Remember waxaan ka soo hadalay this one ka soo hadalay waxaanayni waxa loo isticmaalaa wax ku dhow oo shay oo mufrada ama kaliya. This is a book. This is a book. Kan waa book. This is my notebook. Kan waa buugaygi weeyaan kan waliba gaar ahaan ka wax ku qorto. This is a chair. Kan waa chair. I have a pencil. Pencil baan haystaa. The teacher has a marker. macalinku wuxuu haystaa qalinka wax lagu qoro samuurada lagu qoro. My backpack is blue. Remember ereyada dhan waan soo baranay. My backpack is blue. Shantad boorsadaydu waa blue. Okay, let's do it. Let me read it one more time. This is a book. This is my notebook. This is a chair. I have a pencil. The teacher has a marker. My backpack is blue. Part 4, grammar corner. Corner waa iska garas waa koonihii caadiga weeye grammar corner. marka imika grammar waxaan leeyahay waa naxwo. marka qaybteeni dhinacii naxwaha ayaan tagaynaa imika. This versus that. This waxa loo isticmaalaa wax ku dhow. That oo shay kaliya oo qura waa shay qura. That wax ka fog oo kaliya baa loo isticmaalaa. marka waxa kaliya ku kala duwan yihiin tan wax ku dhow baa loo isticmaalaa tanna wax ka fog baa loo isticmaalaa. This wax ku dhow baa loo isticmaalaa that wax ka fog baa loo isticmaalaa. labadoodaba shay kaliya baa loo isticmaalaa. jamac looma isticmaalo mufrad baa loo isticmaalaa. Use this for something near you. This waxaad isticmaalaysaa shay ku dhow. This is a book. qalinka buugu markuu ku dhow yahay oranaysa this is a book. This is my pencil. kan waa qalinkaygi. This is a book. kan waa book. Use that for something far away. Use that for something far away. That waxaad isticmaalaysaa shay ka fog. That is a chair. kaasi waa chair. kaasi waxa weeye kursi. That is a ruler. taasi waa mastarad. haddana waxaan odhanaynaa these. haddana waxaanu baranaynaa these iyo those iyo these. labadoodaba jamac baa loo isticmaalaa laakiin waxay ku kala duwan yihiin waxa weeye midna wax ka fog baad isticmaalaysaa midna wax ku dhow baad isticmaalaysaa. labadooduba jamac bay ka hadlayaan laakiin midna wax ku dhow baad isticmaalaysaa midna wax ka fog baad isticmaalaysaa. These wax ku dhow fara badan baad isticmaalaysaa. Those wax ka fog fara badan baad isticmaalaysaa. Let's see examples. These are books. kuwani waa buugaag. These are pencils. kuwani waa pencil. haddaba waxa timi those waxaad isticmaalaysaa wax ka fog oo fara badan. Those are chairs. kuwaasi waa kuraasi. Those are desks. kuwaasi waa miisas. Quick chip.
this one thing near you. waxaad isticmaalaysaa this one thing near you, that one thing far away from you, these many things near you, those many things far away. this waxaad isticmaalaysaa wax ku dhow, that waxaad isticmaalaysaa shay qura oo kaa fog, these waxaad isticmaalaysaa shaya fara badan oo ku dhow, those waxaad isticmaalaysaa shaya fara badan oo kaa fog. Part 5 real life conversation. markaa sheekadani waa sheeko macalin iyo arday dhex maraysa, teacher and student, arday iyo macalin. teacher good morning, subax wanaagsan macalinkii baa odhanaya. student good morning, ardaygii baa odhanaya. teacher qofku hadduu hadii jeer good morning kugu yidhaahdo, good morning waad ku celin kartaa isagana. hadduu good morning kugu yahay qof, isagana good morning waad ka odhan kartaa. okay teacher what is this, macalinkii baa odhanaya waa maxay kani. ardaygii student this is a book, ardayga wuxuu odhanaya this is a book, kan waa book. teacher is this your book, kan ma buugaagiiba. yes it is, yes it is, ardayga wuxuu odhanayaa haa kan waa buugaygii. teacher what is that, waxay waxaasi. teacher macalinkii baa odhanaya what is that, waxay waxaas. ardaygii baa odhanaya that is a chair, that is a chair, kaasi waa kursi. part 6 reading practice, reading practice. markasta waxaad u baahan tahay inaad bahasho ingiriisida akhrido, sababtoo markastaad wax aad u akhrido inaad ingiriista ku hadashaana way ku fududaanayaan. read this paragraph, read this paragraph. okay paragraph waxa weeye qoraalka isku xiran, waxa weeye book oo kale ayaad odhan kartaa. hello my name is Amina, I'm a student, this is my classroom, I have a notebook, a pencil and a ruler. My teacher has a marker, I enjoy learning English. read this paragraph aloud, read this paragraph aloud. paragraphkan sara u akhri. read this paragraph aloud, waxaanu this waa kan soo maaha, paragraphkan sara u akhri. hello my name is Amina, I'm a student, this is my classroom, I have a notebook, a pencil and a ruler. My teacher has a marker, I enjoy learning English. barashada Englishta waan ku raaxaysta. let me do one more time. hello salam, my name is Amina, magacaygu waa Amina, I'm a student, ardayad baan ahay, this is my classroom, kan waa fasalkaygii, I have a notebook, waxaan haystaa book, a pencil qalin qori and a ruler mastarad. My teacher has a marker, macalinkaygu waxaa haystaa qalinka samuurada lagu qoro. I enjoy learning English, waan ku raaxaystaa barashada English. read it twice, read it twice, read it 2 times. okay read it 2 times, laba jeer akhri. okay part 7 speaking practice. tan adiga ayaa sameynaya, videoga waad joojinaysaa dabadeedna waad sameynaysaa, waan ku akhriyaya un anigu tusaalayaal la waan idin siinaya. pause this video and answer the questions. what is this, do you have a notebook, what color is your backpack, do you write with a pen or a pencil? try answers in complete sentences. for example, tusaale ahaan, I have a blue notebook, I have a blue notebook, notebookaygu waa blue, ama buugaygu waa blue. okay look around your room, find 5 classroom objects. qama qolkaaga meesha ma garanaysaa, waxaad eegi kartaa hareerahaaga, deedna waxyaabaha ku dhow isku day inaad English ku sheegto. kuwana waan macnayn karaa haddii ay magaranayso. what's this, kan waa maxay. do you have a notebook, notebook miyaad haysataa. what color is your backpack, backpacka shanta boorsadaada waa kalarkee. do you write with a pen or a pencil, waxaad ku qortaa qalin mise qalin qori. three answers in complete sentences. okay thank you so much, casharkeeni maanta intaasaynu kusoo koobaynaa. waxaan rajeynaya casharkan inaad ka faa'iideen.
barashada Englishna waxa weeye dadaal iyo inaad ma garanaysaa isku daydo inaad kalsooni muujiso aad dadaasho aad isku daydo Englishta macallin Englishta haday jajabantay inaad ku hadasho kalsoonida iyo isku daygu nolosha wax badan bay ka bedelaan khayr baan dhamaantiin idin soo rajeynayaa de subscribe gareeya channelka casharadana la socdo aad iyo aad baa mahadsantihiin